weydiiyahan waxa uu leeyahay hooyaday way habaar badan tahay markii ay wax dhibsatana way habaartaa marka habaarkaas oo caado u noqday may qabanayaan hadda ka hor baan soo sheegnay su'aalihii hore qaybo ka mid ah yaa waxaan ku soo sheegnay inuu nabigu reebay sallallahu alayhi wasallam inuu ruuxu ishabaaro ama caruurtiisa habaaro ama xoolihiisa habaaro ama dadka u adeegaya uu habaaro oo nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam hawaafaqina saacad iyo waqti ilaahay wixii la weydiisto uusan soo celinin marka waalidku inuu shaqo ka dhigto dhaqan ka dhigto habaarka caruurta ma fiicna waa arrin aan sax ahayn bedelka habaarkana waxaa fiican inuu barto waalidku ducada inuu u duceeyo waxbaad qoonsatay mii baad kari weyday baad si noqday u ducee hagaagiisa iyo inuu islaaxo baa maslaxada isagana ugu jirta adigana kuugu jirta laakiin haddaad habaarto waxba ka dheefi mayso arrintaas horta waalidka waa in lagu baraarugo qodobka labaad caruurta iyo awlaaddu waa inay ka fogaadaan asbaabta keeni karta in waalidku habaaro laana waxay ka mid tahay waajibaadka saaran inay waalidka baari u noqdaan baarinimaduna waxaa qaybka inuu ku dadaalo waalidka ridihiisa laana waalidkood raalli geliso waa ilaahay oo raalli geliso ilaahay waa raalli kaaga noqonay marka inaad ka dadaasho wixii uu ka cadhoonayo wax habaarka keenaya yaa ilmahana laga rabaa ama ma la aqbalayaayo habaarkaasi ma igu dhacaya labaan u kala qaadayna inaad tahay ilmo gardaran oo waalidka habaarkiisu sabab buu ku yimid adigu aad la timid oo khalada waalidka adaa khalad ka galay kadibna wuu ku habaaray habaarka in la aqbalo way suroobi kartaa waxa ila nabigeena wuxuu sallallahu alayhi wasallam ducooyinka aan la soo celinin waxa kamida waalid ilmihiisa u ducaynay طبعا ducada waxa galaya ducaa lahu iyo ducaa calayhi habaarka na ducaa la dhahaa ducada iyo tuugmada caadigaana ducaa la dhahaa luqada carabiga kaliya waxa lagu kala duwaa minna ducaa calayhi baa la dhahaa calayhi baa ka dambaysa waa habaarka minna ducaa lahu baa la dhahaayo waa ducada caadiga marka waalidku hadduu ku habaaro ama ku duceeyo labadaba waa maqbuul haddii waalidku ilmihiiyo dadaalay oo waxba rakranaynin sabab lagu habaarana aan la imaanin haddii waalidka dabeecad xumadiisa ama qalafsanaantiisu ay keento inuu iska habaaro xaq darro ku habaaro hada ilaahay ka yeeli maayo sooma laana waa duca waa habaar dulmi ah sooma waa habaar dulmi ilaahayna dulmi ma aqbalo marka ilma hadda tahay sidaada waa inaad ku dadaasho adiga xaggaaga inaysan ka imaanin sabab keeni karta in waalidku ku habaaro hadda dhankaaga ka dadaasho waalidku iska cadhoodo oo muxuu ahaa iska xanaaqlow yahay habaarkiisaasi marka gar la'aanta ku socdaay ilaahay tabaaraka wa tacaala dulmi mana aqbalo mana taageero isagana naftiisa waa ka xarimay adoomada korkoodan ilaahay waa ka xarimay tabaaraka wa tacaala laakiin waxaad ogaataa mar walba saacad ba iska jiri karta yaani saacatul ijaabo wixii ilaahay la weydiistaba ay dhici karto inuu aqbalo aad u taxadar marka aad iyo aad uga dadaal waalidka iyo habaarkiisaas inaad iska ilaaliso insha Allah ta'ala